2015 bishii shanaad 14 saacad markay ahayd kowdii ayaa xaafadda madaxweynaha Mareykanka ee John Biden deganaa waxay soo wicin booliska iyagoo sheegaya in guri kamid ah guryuhu ay gubanayo. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada sheekooyinka ayana kana daawanaysan bolof iyo lecture hadda YouTube ka daawadeen hadda YouTube ka kaalay ku qoran sheekooyinka ayaa ugu soo biirtay. Sheekada maanta waxay waxay qosaysaa qoys la yiraahdo Safa Police. Safa Police wuxuu ka kooban yahay hooyo la yiraahdo Amy iyo aabbo la yiraahdo Safa. waxay isku barteen dugsiga sare kadib xiriir baa dhex maray xiriir marka dhex mareen kadib waxay go'aansadeen ilaa xataa jaamacad inay isku jaamacad galaan kadibna isku jaamacad bay galeen waxaan galin jaamacad la yiraahdo Maryland kadib jaamacad ka soo qalin jabiyeen kadib iskuursadeen kadib ilaahay wuxuu siiyay saddex ubada waa laba hablood oo la kala yiraahdo Karina iyo Abigail waa 19 jir iyo 16 jir iyo wiil Philip la yiraahdo oo 10 jir aabaha Safa la yiraahdo waa 46 jir hooyadiina waa 47 jir reerkaas waa reer iska ladan ma sha Allah markay 2001 ay u soo guureen ay guri ka dhisteen xaafadda madaxweynaha Mareykanka John Biden oo degan ay guri ka dhisteen guri meelahaas aduu $4 milyan noocaas ku kacay dhisteen soo reerkaas u xiliyeen diyaaradiga u gaara dooniga u gaareen ma sha Allah waa reer iska ladan aabuhu wuxuu CEO ka yahay shirkadda American Airways ayuu ka yahay CEO kadibna 2012 markii la marayay ayuu reerku waxay go'aansadeen labadooda hablood inay school board na geeyaan sidoo kale waxa uu shaqeeyay laba jaariyadood oo la kala yiraahdo Neela iyo Feera la kala yiraahdo Neela wuxuu shaqeyn jirtay 20 sano Feeroniina wuxuu shaqeeyay 5 sano ayuu shaqeynayay yani waqtigaas wax weeyaan 2015 kaas bishii shanaad 13 saacad markay ahayd 4:45 galabnimo ama 10:45 yani hadda raxmartan saacad markay inta ahayd kadib ayaa waxay hooyadii wacday aabihii Safa wuxuu ku tiri dhaqso guriga u kaal odaygiina si dhaqso guriga yimid saacadii barbu soo socday guriga oo ah muddaday guriga meesha shaqada isku jireen kadib markuu gurigii yimid wuxuu la hadlay nin la yiraahdo Jordan oo ay ka shaqeeyaan isku shirkadda ka shaqeeyaan kadib uu la hadlay wuxuu ruuxay diyaarisa lacag $40,000 ah sidoo kale isla habeenka in yar kadib ma ayaa waxay wacday Domino Pizza waxaan ka dalbatay 2 pizza ah waxay ku tiri muxuu ahaayay guriga albaabka igu soo tumina waayo ilmaha yar xanuunsanayaan haya albaabkan igama furi karo pizza albaabka hortiisa ii dhiga baqshiishka ninka pizza soo qaadayna albaabka hortiisa ayaan u dhigayaa ha ka qaato markii pizza loo keenay in yar kadib ayaa waxa odaygii reerka amba Safa wuxuu cod u diray jaariyadooda Neela 40 sano waxay weyntii hadda u shaqeynayso cod buu diray wuxuu ku yiri Amy ba xanuunsanaysa sida awgeed waxay go'aansatay jaariyadii kalaanba Feera waxay go'aansatay in anaga caawa nala hooyato. Amy is in bed sick tonight and she was sick this afternoon and Vera offered to stay and help her out. codkaas wuxuu ku jira saddex waxo yani قريبة وأنا بفار باسد حفار بكتير مكانسان فارت كوباد وحويين إنه يدي ما بحانو صنصة مرام حيكون تركوب بيتسها وحانو صنع المهي تقول كده بين شيء موجي سيدو كله فارت كلا يحا ممكن بدون شيء محو قبل ده شارية ده غير كودو وعوي يالكيدي وديجي كواس محو وشي وعي يدي اللي هو يعني سو تصدحات ayaa waxay tahay bal u fiirsada cod qaylo isqabsidid istilaya ay xagga danbaan ka maqleena this afternoon and Vera is this afternoon and Vera almuhim habeenkaas isku dhamaatay subaxnimadii ayaa waxay fariin u qortay jaariyadoodii ka maqanayd waxaanay ku tiri maanta ha imanin guriga amba maanta ha soo shaqo tagin jaariyadaha waxa sida caadiga ah markay subaxdii shaqeeyaan gurigooda habeenkiis ka hooyin jireen lama seexan jireen yani sidoo kale wuxuu Safa u fariin u diray Jordan amba wuxuu qaraacay Jordan waxaan ku yiri muxuu ahaayay lacagtii guriga UK se kol muhiim ah ku jiraaye muxuu ahaayay guriga soo tumin garaajka gaariga yaala lacagta igu rid $40,000
halkay igu rid saas ku yiri kiina sidoo sheegay sameeyay lacagta halkii ugu riday kadibna fariin buu u diray in lacagta halkii ugu riday odaygii jaariyada ayaa wuxuu imi gurigii Safa waayo xaaskiisii ilaa shalay sidii uma soo noqon wax fariimaana kama qabanayso يعني fariimaha ma soo jawaabayso telefoonka kama qabanayso Safa waa la mid Eema waa la mid gurigii markuu imi ayaa gurigii qaraacay walaga furwaayay si wuxuu maqlay muxuu ahay codka kursi saas ku dhacay noocaas kale ayuu maqlay adii gurigii markii laga furwaayay si uu maqlay isleeyahay dad baa ku jira maadaama waxaan kursiga dhacay noocaas maqlay uu iska tagay markuu iska tagay kadib in yar kadib waxa soo wacay Safa wuxuu ku yiri muxuu ahay Eema xanuunsatay dhakhtar baanan geynay soo kale gabadhaadu way raacday amba xaaskaagu way raacday markaas markii Eema aan ka soo saarno muxuu ahay dhakhtarka aniga kula soo hadlaaya ninkaba wuxuu ku yiri Safa dhakhtarkayba joogtaan wuxuu ku yiri Safa ma garanay dhakhtarkan joogno si keedisa aan dhakhtarka u nimi mana garanay kii nagu dhawaan baan soo xararnay waxaan maskaxda gelin aduu saas ku yiri ninkiina hayb iska dhigay inkastoo ninkan dayaan sidoo sida degan hay iska oran kara yani gabadhaadii ilaa shalay soomay noqon maalin labaadii yani maalin bay maqantay maalin iyo wali bad bay maqantay nina wuxuu ku yiri hadal aan yani maskaxda gelin karin adna way habaas ka tiri saacadu markay ahayd maalin labaadii weeyaan hataa 14 May weeyaan koodii markay ahayd ayaa jaarkii waxay soo qaraaceen booliska sidan fiidiyoga bilowgiisa ku aragnay in guri gubtay oo xaafada guriga gubtay ay soo sheegeen guriga gubtayna waa gurigii Safa ayuu ahaa booliskii baa loo yeeray dandamiskii gurigii wali waqti gurigii markii la galay kadib ayaa waxa la arkay in guriga aan gubin qulaata se dadna lagu dilay oo u yaalo meedkii islaantii guriga ama Eema iyo ilmihii yaraa iyo jaariyadii iyo waliba Safa laftiisa waliba dadku dabka kumay dhimaneen waa la dilay askarta markii waxay yeereen dambaariyaashiina shaqadooda way qabsadeen wixii dilay guriga yaalay way ururiyeen guriga waxa yaalo laga helay waa pizza bad laga cunay pizzadaas waxa ku yaalay DNA afarta qof ee dhintay midna aan lahayn sidoo kale waxa laga helay timo waxa laga helay mindi amba sood waxaan laga helay koofiyad intaaba DNA baa laga helay DNA aan afartan qof midna aan lahayn si qofka DNA leh uu qof kulaatay yani afarta intaasoo waxba qof kulaatay DNA kiisa baa laga helay waa qofkaas toro si muxuu guriga ka soo doon dadkan misaga dilay DNA waxa leh nin la ilaaho daarin waa nin madow ah halkan uga aragtaan wuxuu ka shaqeynayay shirkadda ninkan Safa ayuu ka shaqeynayay 5 sano ka hor ay shaqada laga yeelay dhibaato awgeed looga yeelay dhibaato badan yahay looga yeelay ninkan sidiisa kale uu iska dhibaato badan yahay intaasoo jeer baa la xulay dhac burcadnimo wax badan lagu xulay ninka nimanka wuxuu reerka soo doona markii baa la soo qabtay lagu reerka maxaa ka soo doontay kadibna wuxuu ku leeyahay anigu meeshaan iska maray laakiin anigu ma dilin qofka dilay laakiin waa walaalka midii walaalihiin buu sheegay taas waxa ka daran qarinkiisa amba looyarkiisa ka daran wuxuu ku difaacaya marka lagu wadi DNA-kiisa laga helay DNA-kiisa maxaa meesha keenay inuu reerka ismoo yaqaanaan be wuxuu ku leeyahay baday You suggest that your client is not guilty of these crimes because he simply doesn't like that as a food choice. His mother doesn't like pizza. His sister doesn't like pizza. His brother doesn't like pizza. He's got 5 sisters, 3 brothers. They're from British Guiana. There's no Papa John's. There's no Domino's Pizza there. It's a British-speaking country in South America, the only one. It's sparsely populated. It has 750,000 people. It's about the size of Kansas. They don't have pizza there. He doesn't like pizza. But what does that have to do with anything, whether or not it's his top food choice? If the fact of the matter
matter is his DNA puts him right there at the scene. How do you explain why his DNA is in that particular home? Why is he there? You still can't identify why or explain why your client would be there. I bet you have someone's DNA in your house who's never lived there. Most people do. If I cut myself in this interview room and my DNA is left here and a crime is committed here 12 hours later, does that mean I committed the crime? Of course it doesn't. waan ognahay muxuu haayay dadku looyaradu hadda qofku hadduu yahay qof dambiilaa in aan ku daafacaan second daaficidiisaaba ahba geerigiisa qofkan uu leeyahay iska xidhado yani saas daaficid maaha waxaan suurtagal in buu daafacay kullee DNA-ka waa la iska heli karaa meesha doonta DNA-ka laga heli karaa markaan adan aniga wareysan sidaan meesha ka tago oo saacad kadib adiga lagu dilo DNA-ka meesha laga heli maayo wuxuu dhura wada saacado ka hor maxaa meesha keenay reerka Soomaaliga yaqaanaan be gurigooda maxaa keenay bidsaha gurigooda yaala sida buu cuni karaa mindidan wuxuu sameeyay المهم isaga walaalkii daarlin walaalkii iyo sidoo kale waxa la soo qabtay ninkii lacagta u keenayay Safa Jordan ayaa sidna boolis ka shakiyeen waxay uga shakiyeen waxa weeyaan hadalkiisu dhaafay wuxuu ku leeyahay Jordan wuxuu sheegay booliska in markii bishu ahayd 14 uu soo wacay Safa aanu ku wuri lacagta ay keen se markii dambe uu bedelay hadalkiisii hore markaas uu yiri wuxuu soo wacay 13 bisha sidoo kale wuxuu yiri lacagta qaabkan bankiga soo qaadnay aniga shaqaale kale shirkadda ah ayaa bankiga tagnay lacagta waxaan ka soo qaadnay iyadoo ku jirta gal lacagta lagu rido se markii dambe uu bedelay hadalkii wuxuu yiri may bankiga waxaan kaga soo qaadnay lacagta iyadoo ku jirta shandad cas kadibna kan meeshii gurigii tagay ayaan shandadii caseed ka saaray oo gal gaariga yaalay ayaan geliyay sidoo kale wuxuu uga shakiyeen gaarigii eema guriga waa laga waayay markii la baaray kadib waxaa la helay in xaafadda uu Jordan degan yahay wada kamid ah gaariga isagoo la gubay ayaa laga helay si awgeed waa laga shakiyay si Jordan ya daarlin walaalkii labadaba waxa deena waa lagu waayay waa la iska sii daayay daarlin waa la xukumay waxaan lagu xukumay xabsi daayin iyadoo lagu cadeeyay 20 dambi oo ku jiraan 40 qof oo dilay si awgeed waxa lagu xukumay xabsi daayin aan weligii ka soo bixi karin saasha sheekaduna ku dhamaatay haddaad ka heshay like saar soo kale ku soo biir sheekooyinka ayaan wassalaamu calaykum intaan tegin horta sheekadan mid baan sheegay aad ka faa'iideysaan qof had taqaanid hadduu ku soo weeraro waliba qofka aad wajigiisa aragtay amba codkiisa aad fahantay oo codkiisa ka garatay usugna ku ogaadeen inaad codkiisa ka garatay haddii wajigiisu qarsan yahay si haddaan wajigiisu qarsan aad aragtay uu qofkaas ku soo weeraro isku dayo inuu lacag ka qaato amba dii uu ku dafo amba inuu dad in aan tahay ku kufsado xitay marka kale la kufsado amba uu ku kufsado adu waxay tahayba uu ku sameeyo asaa qofka aad toos u garanaysid ugu weyn qofkaas naftaada kaaga dhamaanayo qofka hadaan garanaynin ha fursad baa laga yaabaa inaad haysatay si hadaad qofka garanaysid sugna og yahay inaad garanaysid istifaac imaka reerkan 19 saacadood ay ninkaas guriga ku haystay waliba galabtii ilaa iyo habeenkii ilaa iyo subaxdii kale ilaa iyo 10kii markuu lacagta u dhigay John ilaa odaygii jaariyada markuu waxa soo dhaweyn noolaayeen intaas oo saacadood u noolaayeen daqiiqadii ugu dambeysay ayaa la dilay intaas oo dhan isku mid yimarnay ونوك سكون دين أبا كبردو سكون دين إن نفتو الدفاع وهبا داوع هلسه هبا سوق عرسية نفتو دين الدفاع بهاين حقف كهداد جيل الغيابة إن فرصة سلالة وضعي ستاوك سيدين دون على عكت مركز سيسيد سيكون وذكرنا سا فرصة ما هي سيدين كاستفاع سيسكون دفاعي كتلبا سلام وكلا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم